madaxda xisbiga maayirka magaalada gudoomiyaha dalada dhalinyarada gudoomiyihii hore saxaafadda iyo bulshooyinka gobolka Midowga ee magaalada Gaalkacyo waxaanu ku suganahay xarunta urur siyaasadeedka ka ee gobolka Midowga ee magaalada Gaalkacyo madaxda ururka u qareemaysay oo 3 maalmood maanta nagula sugan magaalada Gaalkacyo waxay afkaarta ururka dhan walba ay kula wadaagayeen bulshada gobolka iyagoo tusaaleynayay nidaamkii hore wax lagu dooranayay iyo noloshii cakriyada hore loo soo maray in la helay maanta fursad ka duwan oo qofka muwaadinka inuu cod leeyahay codkiisana ku meel mari karo oo uusan ka shalaayeen barito waxa uu codkiisu taray la kulanka noocaas ay dadkii qaybna waxay ka dhaadhiciyeen in afkaarta ay wataan urur siyaasadeedka ka ay ku soo biiraan iyagoo waliba talagaliyada ku daray in urur siyaasadeed badan ka jiraan deegaanka qayb yimaadeen qaybna imaan doonaan iyaguna iraadada shacabka siiyay aan khasbin kadib afkaarta noocaas ayay inagoo dhan gobolka waxay soo gudbiyeen fikirka noocaas gudoomiyahan maadaama ururadu aan ku biiri lahaa urur siyaasadeedkan ka siyaasaddiisa shakhsiga waa ku qancay waana aan ku biiray waxaan rajeynayaa shacabweynaha gobolka Mudug iyagoo maanta dimuqraadiyad la aaday qofku shakhsiga xisbiga rabo ku biiri karo talaan waxaan soo jeedin lahaa codsan lahaana inaanu abshirta iswaafajino yaasiinkana u qabanno ururkan ka oo akhyaarta gobolka Mudug waliba inoogu jira dawladda dhexmaanta inoo hogaaminayaan niman saciimiin oo ehlu sharaf oo xukuumadda raggii oo waliba aan ka shiisanaynay bal waxaynu rabnaa hadda kadib wixii ka dambeeyay inaynu cod iyo vote u dareero aad baan u mahadsantihiin maanta waxaan u taaganahay xarig jarkii ama daafurkii xaruntii gobolka Mudug ee ururka ka sida ka muuqata boorkii feasibility-ga waan ku soo dhaweynaynaa ka degmada Gaalkacyo iyo gobolka Mudugba waxaan diyaar u nahay inaanu kuna biirno kana shaqeyno lana shaqeyno kana soo tartarno hadii Allah awoodo leedmo waa ururada kamid ah Puntland ee dhawaan la hirgeliyay oo dimuqraadiyiinta iyo siyaasadda cusub ee one man one vote ka ah hadii Allah awoodo leedmo ka qayb qaadanaya maanta waxaan joognaa xarunta cusbeed ee gobolka Mudug oo aan daa jarnay daafurkeedii iyo waliba shaqo bilowgeedii daafur kaliya ma ahan inay shaqo bilowdo oo aan maanta xubnihiina rajiiskareyno laguna soo biiro anaga ayaa kowka oo rabnaa inaan rajiiskareyno hadii Allah awoodo leedmo cid kasta oo aan fikirka nala wadaagta ama siyaasadda ka ururka jecel inaan wax uga sheegnana waan uga sheegaynaa shacabkana waxaan ka codsanaa inay nagula soo biiraan hadii Allah awoodo leedmo waa urur aan isleenahay wax badan buu ka bedeli doonaa dadka jecel inay ka qayb qaataan siyaasadda siiba wuxuu siin doonaa platform dhalinyarada iyo dumarka labadaba in ay qofku uu shakhsiyadiisa iyo halku dhigiisa iyo dadnimadiisa uu ku soo bandhigto oo asagoo codkiisa raadsado laga gudbo sidii hore ee lagu imaan jiray marka waa ururku waan soo dhaweynaynaa soo dhawaada gudigana waxaan leenahay shaqo fiican baad qabateen hadaadna soo gaariseen ururkii ka ee aad noo fudheen gobolkana nooga daafudheen iyo degmada Gaalkacyaba annaguna insha Allah taala halkaasaan ka sii wadi doonaa waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta inaynu halkan joogno magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug annaga oo wafdigii iyo madaxdii ka socotay urur siyaasadeedka ka halkan maalmahan u joognay sidii loo dardargelin lahaa shaqooyinka ururku ee gobolada uu ka wado sida aynu la wada soconaba waxaa dhawaan la bilaabay oo muddo socday furitaanka urur siyaasadeedyada wadanka taas annagoo ka duulayna urur siyaasadeedka ka oo annagu ka mid nahay wuxuu maalmahan iyo ayaamahanba waday dardargelinta sidii uu gobolada iyo degmooyinka dalka isugu baahin lahaa xarumana uga furan lahaa maanta halkan inaan joogno waa ilaahay mahadiis inay noo furantay xaruntii ururka ee magaalada Gaalkacyo inaynu bilownay maanta isdiiwaangelintii iyo ku soo biiristii dadka reer Gaalkacyo waxaan rabaa inaan aad iyo aad ugu mahad celiyo dadweynaha reer Gaalkacyo iyo gobolka Mudugba sida ay u soo dhaweeyeen
sida ay doonayaan inay uga mid noqdaan urur siyaasadeedka kaah sida ay ugu qanceen mabaadi'da iyo barnaamijyada siyaasadeed ee ururku uu doonayo ama ballanqaadyada uu samaynayo oo dalkan uu rabo inuu ku hanto hoggaankiisa mustaqbalka kuna dabaqo maadaama qayb dowladda maanta joogta ay qayb ka tahay golayaasheeda qayb ka mid ihi aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa shacabka reer Gaalkacyo iyo guud ahaan gobolka Mudug soo dhaweyntooda iyo bogaadintooda dadkii noo soo agaasimay kulankan iyo xafladan quruxda badanna si gaar ah ugu sii mahad celinayaa waxaan rabaa inaan fariin gaar ah u diro inta inaga maqan iyo inta aan ku soconno oo aan rabno inaan gaarsiino degmooyinka gobolka kale in ay ku soo biiraan soo dhaweeyaan qayb ka noqdaan platform maanta waxaynu haysanaa qof walbaba rabitaankiisa uu waxna ku dooran karo kaga mid noqon karo ururka waxaanu annagu ku dhawaaqaynaa oo leenahay mabaadi'da ururkani uu ka duulaya waa mabaadi' dalka iyo dadka wax ugu taalla oo la doonayo dalkan iyo dadkan in lagu horumariyo wixii hore loo soo qabtay lagu tayeeyo wixii dhimanna lagu gaaro yoolashii iyo higsigii la higsanayay taasoo ka duulaysa Puntland wixii lagu aasaasay oo bayska u ahaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaadba bismillaah alxamdulillaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah ugu horreyn ilaah baa mahad iska leh waxaa sharaf weyn noo ah maantay inaynu halkan uga soo qayb galno xafladda daahfurka xafiiska urur siyaasadeedka kaah ee gobolka Mudug halkan laga furayo gaar ahaan degmada Gaalkacyo oo xafiiska ugu horeeyay halkan laga furay aad iyo aad baan runtii aan ugu faraxsanahay ka soo qayb galkeeda iyo daahfurka halkan xafiiska urur siyaasadeedka kaah dabcan waxaan filayaa dadka halkan isugu yimid waa dad ku qancay fikradda iyo siyaasadda uu ku duulahay urur siyaasadeedka kaah waxaan rajaynayaa insha Allah tacaala inay noqoto mid guuleysata oo miro dhasha dhammaan dhalinyarada gobolka Mudug oo anigu aan gudoomiyaha u ahay insha Allah waxaan inoo ballan ah dhamaanteedu inaynu maartay awoodeena iyo cuudeena isugu geyno urur siyaasadeedka kaah si dhalinyaradu ay ugu yeeshaan door muuqda siyaasadda axsaabta furan iyo dimuqraadiyadeynta waxa aad iyo aad ugu faraxsanahay uguna dhiirigelinaynaa runtii wasiirada iyo xildhibaanada iyo madaxda xisbiga dadaalka weyn ay muujiyeen inay hirgeliyaan xafiiskan halkan maartay maanta lagu daahfuray urur siyaasadeedka kaah waxaa la yiraahdaa waa ururka ugu tunka weyn xisbiyada hadda ka aasaasmay Puntland sidaa darteed waxaan ka rajaynaynaa insha Allah tacaala talaabooyinka ugu horeeya ugu muhiimsan in la qaado dhammaan dhalinyarada waan soo dhaweynaynaa waxaanu leenahay weelkan ku soo dhawaada Gaalkacyo ku soo dhawaada gobolka Mudug dhalinyaraduna waa idin heelan yihiin dhamaantiin bismillaahir rahmaanir rahiim waan soo dhaweynaynaa waan taageeraynaa ururka kaah oo ay hormuudka ka yihiin guddiga wasiirada iyo xildhibaanada doorka muhiimka ugu fadhiyo gobolka Mudug xulkii wasiiradii maadaama ay hogaaminayaan xisbigan annagu ma naqaano laakiin maadaama ay hogaaminayaan xildhibaanada iyadii qaaliga ahaa iyo wasiirada iyadii doorka muhiimka ugu jira gobolka Mudug karaamadooda baan ku soo dhaweynaynaa xaqiiqatan waa ururkii ugu horeeyay oo laga furo Puntland waa ururkii ugu horeeyay oo lagu furo gobolka Mudug waa ururkii ugu horeeyay oo ballan qaaday inuu xuquuqda haweenka iyo dhalinyarada uu doorka koowaad siinayo annagu muhiimadan siinaynaa wax badan baanu soo shaqaynay wax badan baa jaranjarta naloo ka gudbay inaanu kartidayada iyo karaamadayada wax ku qaadano oo ku tartanaanu danaynayna haddaanu nahay haweenka Soomaaliyeed waan soo dhaweynaynaa qabiil inaan ka baxno waan soo dhaweynaynaa qof iyo cod inaan u gudubno taasaanu ku taageeraynaa qabiil kuma taageerayno qof ma taageerayno dawlad ma taageerayno danaha iyagaan taageeraynaa xaqiiqadu waxay tahay annagu waxaan xisbiga ka rabnaa oo mas'uuliyiintiisa u gudbinaynaa
inaannu baartileel noqonno konton haweenka iyo konton dumarka kaahna doorkaan siinayna waayo waa xisbigii ugu horreeyey oo laga furo gobolka mudug waa xisbigii ugu horreeyey oo muhiimadda puntland oo siiyey gobolka mudug reer puntland gobolka mudugna waxaan aan ugu baaqayaa maadaama muhiimadda xisbigu idin siiyey inaan annaguna muhiimadda siinay xisbiga kaah waxa waaye ka haween ahaan haweenku waa dulman yihiin laakiin kii dulanka looga baxaa allaha ka dhigo xisbiga kaah waxaan leenahay xisbiga kaah kii xuquuqda dhalinyarada iyo haweenka soo saara allaha ka dhigo ka mid ah dhalinyarada gobolka mudug maanta halkan waxaanu xariga ka jarnay urur siyaasadeedka kaah runtii mar haddii guddoomiyihii dhalinyarada gobolka mudug uu joogo guddoomiyihii hore dhallinyaradana uu joogo waxay ila tahay haweenkiina ay joogaan dhammaan dhallinyaradii ururkaah waa ku dhan yahay waa soo dhowaynaynaa waa la shaqaynaynaa waxaan aaminsannahay inaan annagu leennahay dabcan waa fursad wax badan baanu dhallinyarada u qarayna waxaan nidhi dhallinyarada siyaasadda ka soo muuqdaan maanta puntland waxaa loo gudbi doonaa hadduu alle idmo urur siyaasadeeda loo gudboonaa xisbiyaa loo gudbayaa maadaama xisbiya loo gudbayo meeshani waa meeshii dhallinyarada iyo haweenka awooddooda ay ka muujin lahaayeen waa meeshii dhallinyarada iyo haweenka ay siyaasadda kaga soo geli lahaayeen in badan baan nidhi dhallinyaradu waa dulman yihiin siyaasadda kama dhex muuqdaan maxaa la oran jiray xaqooda waa la dudsiiyaa laakiin maanta waxaan aaminsanahay insha allah inaan ka bixi doonaan aaminsanahay hadduu alle idmo waa soo dhowaynaynaa urur siyaasadeedka ah sifooyin fara badan ayaannu ka dhex aragnay haddaan nahay dhallinyaradii gobolka ururo badan baan aragnay siyaasadeed ah oo gaalkacay noogu yimid way nooga muuqan weyday danaha dhallinyarada iyo danaha haweenka way nooga muuqan weyday laakiin kaah waxaa inooga muuqday danihii dhallinyarada danihii haweenka danihii bulshaweynta soomaaliyeed bulshada reer gaalkacyood bulshada dhammaan reer puntland marka sidaa darteed insha allah waannu muujin doonnaa cududyada waannu muujin doonnaa maxaa la oran jiray awooddayada halkan gurigan aad arkaysaan maanta waxaa isugu yimid dad aad u fara badan runtii ma jiro xisbi intaa isugu soo baxday waxaad dareemaysaa in dhallinyarada ay ku qanacsan yihiin awoodahooda iyo mataqaanaa soo baxdana ay muujinayaan marka waxaan leeyahay dhallinyarada soomaaliyeed ama dhallinyarada gobolka mudug ama dhallinyarada puntland dhammaanteen kaah way kaa haysaa aan ka mid noqonno aanu iska diiwaangelinno aanu maxaa la oran jirnay xoojinna hadduu aalim aad baa u mahadsantihiin wasiiradu iyo xubnaha halkan maraya annagay nagu soo simeen dabcan ma ahan ahna ma ahan laakiin annagay nagu soo simeen ciddii la wareegi lahayd waa annaga ciddii hoggaamin lahayd waa annaga waa wax loo siman yahay dhammaanteen waan u simannahay marka waxaan leenahay hoggaanka aan qabsanne iyaguna waa dhallinyaradu kuwa ka waaweyn insha allah aan nasin all the best waa mahadsantiin waxaana aad iyo aad u soo dhaweynaynaa haddaanu nahay dhallinyarada gobolka mudug urur siyaasadeedka kaah oo runtii urur siyaasadeedka hadda ugu horeeya oo ugu cadcad oo gobolka mudug noogu yimid boqolkiiba boqol waan soo dhaweynaynaa waxaana uga fadhinaa wix kaalintii ay lahayd dhallinyaradu oo ahayd urur siyaasadeedka iyo gabdhaha iyo dhallinyarada wiilasha ah iyo gabdhuhuba khaasatan dumarka kaalintii ay lahayd baanu uga fadhinaa aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa dhammaantaya munaasabadan maanta aadka u ballaaran quruxda badan ujeedkeedii waa la sheegay waa la sharaxay ujeeddadu maanta waxay tahay inaan daah furno xafiiskii urur siyaasadeedka kaah isla maantana aan bilowno diiwaangelintii dadweynaha diiwaangelintii xubnaha xisbiga ee gobolka mudug halkaanay ka bilaabatay si fiican bay u bilaabatay farxad bayna noo tahay sida aad kulanka uga soo qayb qaadateen sida ballaaran qaybihii kala duwanaa ee bulshada aad u soo xaadirteen daahfurka iyo isdiiwaangelinta iyo rajada aad muujiseen intaba ururkan kaah intaanan asaga sharxin waxaan rabaa inaan hal kelmad idhaahdo waxaa kulligeen farxad inoo ah waxaa kulligeen waxaan ku dhiirannay inoo ah waxaa qof kasta oo puntland jooga ididiilo u ah in maanta awooddii loo soo celiyey asaga dadka shacabkaa awooddii in gacantooda lagu soo celiyey in axsaabta badan la furo in dadku codkooda muujiyaan inay wax doortaan in la doorto inay dhaaragshinka iyo jihada siyaasaddu aadayso ay ayagu jaangooyaan rabitaankooda lagu jaangooyo weeye micnaheedu in axsaabigoodan loo guuro
waad ogtihiin nidaamkan isku dooran jirnay nidaamkeenu xildhibaanadeena ku dooran jirnay hadday yihiin kuwa federaal iyo hadday kuwa yihiin heer state iyo hadday yihiin kuwa heer deegaan intaba wixii inaga soo maray wixii dhib inaga qabsaday wixii ina kala geeyey qabaa'il inoo kala jabiyey qabaa'ilka dhexdooda problemkay ku keentay dadka laftooda la dooranayo in qofkii saxda ahaa la helo dhibkay ka keentay waa ogtihiin fursaddii aan uga bixi lahayn oo looga gudbi lahaa hadduu ilaahay idmo waxa weeye waa fursaddaan axsaabta badan weeye waa fursaddaynu in badan sugaynay adinku inaad rabtaanna waad noo sheegteen waa idinka aragnay waad noo muujiseen sidaad hadda u timaadeen sidaynu shalay u shirnay iyo ilaa doraad maalmihii la soo dhaafay wadahadalladiina dhex maray ayaa muujinaya sida aad u doonayno in laga baxo nidaamkii axsaabta badnaa dabcan mahaddeeda waxaa iskale madaxweynaha dowladda Puntland oo ku dhiiraday 21 sano kadib in axsaabta nidaamkan sanadkii u horeeyay laga hawlgeliyo 4 sano oo soo socota haddii golo deegaan la dooranayo asagaa lagu dooran doonaa nidaamkaa lagu dooran doonaa doorashada soo socota waxaa lagu qaban doonaa oo Puntland sidaan haddii federaal doorashooyin dambe dhici doonaan waxaan rajaynayaa in xisbiyadan lagu galo waxaan rabaa marka arrintaas sidaad u soo dhaweyseen sidaad u bogaadiseen anna inaan codkayga ku daro hiigsigiisu uu yahay maamul wanaag iyo dowladnimo Puntland ka hana qaada oo la wada leeyahay oo loo dhan yahay waa urur mudnaanta siinaya dhalinyarada iyo haweenka waa maqlaynay codkii dhalinyarada waa maqlaynay codkii haweenka waxa weeye siyaasadda ururka ayay saldhig u yihiin tiirarka u waaweyn haweenka iyo dhalinyaradu insha Allahu tacaala codkoodaan dhageysan doonaa golaha dhexe qayb ka noqon doonaan golayaasha fulinta ka noqon doonaan go'aamadooda qaadan doonaan insha Allah waana meesha codkooda lagu maqli karo platformkii saxda ahaa ayaan u sameynay maanta oo salka u dhignay hadduu Alle ugu horeeyay sidaad ii sheegteen oo gobolka Mudug laga furo oo gaalkacyo laga furo intaan ogahay sida aad u muujiseen baana aad iyo aad anagana noo farxad gelisay waxaan leenahay shacab weynaha dhalinyarada cuqaasha ganacsatada qaybaha kala duwan oo bulshada ku soo dhawaaka waa idin furan yahay waa inoo furan yahay waa wada leenahay waxa laga yaabaa dadka qaarkood inay yiraahdaan dawladii kaliya ama ay xubnihiisa galayaan ma aha waxa inagu yar fahamka guud aan ka leenahay xisbiga waxa loo sameeyay waxa weeye in wax la wada leeyahay la wada dhisto waa inoo wada furan yahay waa wada leenahay waa wada go'aansanaynaa waa aniga oo wasiira iyo qofka xubinta isku awood baan ka nahay isku xuquuq baynu ku leenahay isku si baan doorashada u raadin karnaa isku si baan shirarka uga qayb galaynaa dabcan waxa loo sameeyaa hierarchies kala duwan oo golo dhexe iyo golo fulin iyo laakiin xisbiga xubintiisa xaq bay leedahay xaqna waa lagu leeyahay